Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum. Buuggan wuxuu ka hadlayaa xiriirka u dhexeeya lacagtaada iyo noloshaada. Waxaana qortay Vicky Roben. Qoraayada buuggeedu waxay ku bilowday su'aal muhiim ah. Su'aashuna waxay tahay ma lacag darteed ayaan u shaqaynaa mise lacagta waxaan u adeegsanaa sidii aan u gaari lahayn xorriyad dhaqaale. Buuggan wuxuu ka hadlaa in dadka badankood ay noloshooda ku lumiyaan raadinta lacagta, iyagoo inta badan ka shaqeeyaan shaqo aysan jeclayn, si ay u bixiyaan qarashaad badan oo aan muhiim ahayn. Muhiimadda buuggan waxay tahay in akhristaha uu fahmo in lacagtu aysan ahayn yoolka ugu dambeeya ee nolosha, balse ay tahay qalab ama aalad lagu gaaro nolol farxad leh iyo xorriyad dhaqaale. Fikradda asaasiga ee buuggan wuxuu diiradda saaraa xorriyad dhaqaale, taasoo ah inaad yeelato ama aad haysato lacag kugu filan si aad noloshaada ugu noolaato adigoo ku xirnayn mushahar bille ah. Micnaha inaadan ku xirnayn mushahar bil aad soo qaadato kadibna aad sugto bisha dambe. Sidoo kale buuggan waxaad ku baranaysaa sidaad u bedeli lahayd xiriirka kala dhexeeya lacagta, sidaad lacagtaada ugu isticmaali lahayd waxyaabaha dhabta ah ee qiimaha leh, sidaad u yareyn lahayd kharashaadka aan loo baahnayn ee aad bixiso, sidaad u dhisi lahayd kayd iyo maalgashi adiga kuu shaqeeya. Buuggan wuxuu bixinayaa 9 tallaabo oo muhiim ah oo loo baahan yahay inaad naftaada ku dabaqdo. Tallaabada koowaad: qiimeey xiriirka aad la leedahay lacagta. Buuggan wuxuu kugu dhiirigelinayaa inaad fahanto lacagta iyo noloshaada midka qiimaha badan. Micnaha lacagta iyo noloshaada midkee qiimo badan. Nolosha bini'aadamka waxa ugu muhiimsan waa waqtiga. Sababtoo ah haddii aad tahay milyaneer laakiin waqtigu uu kaa dhammaado, micnaha la gaaro xilliga geeridaada, lacagtaad haysato nolol ma ku iibsan kartaa. Sidaa darteed qiimaha dhabta ah ee bini'aadamka waa waqtiga. Marka aad rabto inaad shaqo aad bilowdo, waxaad gadanaysaa waqtigaaga. Sababtoo ah maanta haddii aad shaqayso 8 saac waxay ka go'an tahay cimrigaaga. Sidaa darteed shaqada aad qabanayso ku miisaan cimrigaaga. Hana qaban shaqo aadan jeclayn ama shaqo aadan ku gaarayn wax horumar ah. Waqtiga shaqada aad geliso iyo lacagta aad qaadanayso ha ahaadaan kuwa isku dhigma. Tusaale, markaad mushaharka bishii soo qaadato, hadduu ku dhammaado cunto, kiro, gaadiid, kaar, koronto, biyo iyo wax la midka ah, wax kayd ahna aadan ka dhigan mushaharkaaga, taasi waxay la micno tahay inaad ka shaqayso shaqo aan u dhigmin waqtigaaga. Naftaada horumari, xirfado cusub baro, waqtigaaga qiimeey, kuna shaqeey mushahar adiga kuu qalma. Hana ku fikrin weligaa inaad shaqaalo aad ahaato. Waxaad degsataa qorshe aad milkile ku noqon karto mustaqbalka. Tallaabada labaad: qiimeey nolol maalmeedkaaga. Qor dakhligaaga iyo kharashaadkaaga. Qor lacag kastoo ku soo gasha iyo lacag kastoo kaa baxda, si aad u ogaato halka ay lacagtaada ku socoto ama halka ay lacagtaada ku baxayso. Waxaad qoraal ka samaysaa dhammaan dakhligaaga iyo kharashaadkaaga si aad u ogaato halka ay lacagtaada ku baxdo. Tusaale, haddii bishii dakhligaaga uu yahay $1,000, waxaad samaysataa jadwal yar, sida aan dhahno $300 kiraa, $300 cunta, $150 dharka iyo shoppingka, $50 internetka iyo kaarka, $50 gaadiidka, $100 caafimaadka iyo waxbarashada, $50 biyo iyo koronto ah. Sidaas waxaad ku arki kartaa lacagtaada meesha ku baxday. Waxaadna samaysan kartaa qorshe cusub maadaama aysan kuu soo harin wax kayd ah. Waxaadna iska ilaalin kartaa deyma aad qaadan lahayd. Tallaabada saddexaad: ogow qiimaha dakhligaaga. Lacag kasta oo aad bixiso waxay u dhigantaa ama ay matashaa saacado noloshaada oo aad shaqo ku bixisay. Ka fikir ka hor intaadan bixin. Markaad wax iibsanayso, isweydii, waxaan iibsanayo qiimo ma u leeyihiin sida waqtigan ku shaqeeya oo kale. Lacag kasta oo aad bixiso waa natiijada saacado noloshaada oo aad ku shaqaysay. Sidaa darteed saacad walba ku shaqeey lacag u dhiganta. Lacagtaad saacadaas ku soo shaqaysana meel cidla ah ha isaga bixin. Tusaale, haddii aad saacaddii ku shaqayso $5, maalintii haddii aad shaqayso 8 saac oo kaamil ah, waxaad haysataa $40. Bishii waxaad mushaar ahaan u helaysaa $1,200. Markaas weydii naftaada, miyaan u qalmaa inaan lacagtan aan ku shaqeeyo ama aan waqtigiiga dhaafsiisto? Tallaabada afraad: jooji kharashaadka aan muhiimka ahayn. Marka hore aan kala fahanno waxay kala yihiin dakhli iyo kharash. Dakhli waa lacag walba oo ku soo gasha. Kharashna waa lacag walba aad bixiso. Marka waxaad meesha ka saartaa ama aad joojisaa kharash walba aan qiimo dhab ah ku soo kordhinayn nafsadaada. Tusaale, haddii aad toddobaad kasta $10 ku bixiso gadashada waxyaabo aan qiimo badan ku lahayn, isku day inaad iska joojiso gadashada waxyaabaha aan muhiimka ku ahayn si aad u badbaadiso lacagtaada. Sababtoo ah bishii waa 4 ama 5 toddobaad. Aan dhahno 4 toddobaad. Waxaad ku dhufataa $10. Bishii waxaad $40 ku kharash garaynaysaa waxaan muhiim ku ahayn. Sanadkiina waxaad kharash garaynaysaa $480. Midaasina dakhligaaga ayay dhibaato ku tahay. Tallaabada shanaad: kordhi dakhligaaga. Raadi fursado shaqo dheeraad ah sida xirfado cusub ama bilow ganacsi yar si aad lacag badan u hesho.
markaad qarashkaad bixinayso hagaajiso, tallaabada xigta waa inaad raadiso siyaabo aad ku kasban karto dakhli dheeraad ah si aad xorriyad dhaqaale u gaarto. Tusaale, haddii aad xirfad u leedahay turjumaadda luqadaha, qoraalada, sawir qaadista, macallinnimada, ka shaqeey mashruucyo yaryar oo aad dakhli ka samayn karto. Tallaabada lixaad, isku dheelitir noloshaada iyo wakhtiga shaqadaada. Ha ka dhigin noloshaada oo dhan mid aad ku mashquulsan tahay shaqo. Nafsadaada si wakhtiga ku nasato. Buuggan wuxuu xooga saarayaa in wakhtigaaga oo dhan aadan gelin shaqo iyo lacag raadis oo keliya, balse nafsadaada inaad siiso wakhti, ehelkaaga inaad siiso wakhti inaad siiso cibaadada Rabbi subxaanahu wa tacaala. Waxaa muhiim ah inaad wakhtigaaga isku dheelitirto si aad ugu noolaato nolol farxad badan oo hodan ah. Tallaabada toddobaad, samayso kayd joogto ah. Mar kastoo lacag ku soo gasho, qayb ka mid a lacagtaas kaydi, xitaa haddii ay tahay lacag yar, si aad mustaqbalka wax ugu qabsato. Kaydinta joogtada ah waxay kugu saacidaysaa inaad abuurato ganacsi adiga kuu gaar ah ama aad samaysato maalgashi wanaagsan. Buuggan wuxuu kugu dhiirigelinayaa inaad samaysato kayd kala duwan, sida kaydka loogu talagalay arrimaha degdega ku yimaada, kayd loogu talagalay maalgashi, kayd loogu talagalay ganacsi. Tallaabada siddeedaad, maalgashi badbaado leh samayso. Ka fogow maalgashada halista badan ee degdega ku bilowda, degdegana ku dhammaada. Raadi maalgashi halistiisa yar tahay oo faa'iido joogta laga helo. Buuggan wuxuu ka digayaa maalgashiga halista badan ee degdega ah, khasaaradiisana ay badan tahay. Wuxuuna kugu boorinayaa inaad maalgashato maalgashada aan halista lahayn ee faa'iidada joogtada laga helo. Tallaabada sagaalaad, gaar xorriyad dhaqaale. Marka dakhliga kaaga imaanayo maalgashigaaga uu daboolo qarashaadkaaga bil kasta, waxaad gaaraysaa xorriyad dhaqaale. Tani waxay kuu oggolaanaysaa inaad doorato inaad sii shaqayso ama inaad iska nasato, adigoo aan ka welwelsaneen mushahar bil kasta ah. Tusaale, haddii qarashaadka bil kasta adiga iyo familkaaga idinku baxo ay gaarayaan $1,000, adigana bishii waxaad maalgashatay ka helayso $1,500, waxaad gaartay xorriyad dhaqaale. Waxaadna xor u tahay inaad sii shaqayso ama inaad iska nasato. Muhiimadda buuggan maahan oo keliya mid ku saabsan lacag kaydinta, balse waa mid noloshaada oo dhan bedela. Buuggan wuxuu ku barayaa inaad lacagta u aragto saacado noloshaada aad bixinayso, inaad fahanto farqiga u dhexeeya raaxada wakhtiga gaaban iyo xorriyadda muddada dheer, inaad haysato nolol farxad leh, xorriyad dhaqaale iyo qiimo dhab ah. Dhammaadka buuggan wuxuu ku dhiirigelinayaa akhristaha inuu qaado tallaabada ugu horreysa maanta, halkii uu ka sugi lahaa wakhtiga ku habboon. Wuxuuna ku xusuusinayaa in xorriyadda dhaqaale aysan ku imaan hal tallaabo weyn oo la qaado, balse ay ka dhalato go'aano yaryar oo sax ah oo la sameeyo maalin kasta. Insha Allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaad buuggan ka faa'iidaysateen. Intii buug kale, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.